Somali Week Festival sanad walba dabayaaqadiisa ayaa lagu qabtaa London waana madal kulmisa ashkhas mid kasta alla haybad u siiyay wax gaar ah usbuucan oo si rasmi ah u furmay xalay ayaan maxamuud casho ah soo qaban qaabiyaha toddobaadkani ay ku soo dhaweysay martidii kala duwaneed ee ka kala timi meelaha kala duwan aad iyo aad baad mahadsantihiin ku soo dhawaada Somali Week 2015 sanadkani runtii waa sanad aad iyo aad noogu weyn. First of all, I would like to welcome all our guests, especially those who came from far away and very, very far away. xildhibaan Rashaan Cali oo ah xildhibaan ka mid ah baarlamaanka waddanka Ingiriiska kana soo baxay deegaanka lagu qabto toddobaadkan oo halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay in deegaanka ay degan yihiin dadka ay matasha ay martigeliyaan Somali Week Festival. Rashaan Cali ayaa ku ammaantay soo qaban qaabiyaasha hawshan adag ay u hayaan bulshadooda kuna boorisay inay halkaasi ka sii wadaan. How proud I am to be the MP whose constituency gets to be the host for Somali Week. And I want to say a big thank you and a huge congratulations to my friend Ayaan Mahmood and her team. madaxa xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqo sooranka waaxda Afrika Neil Wigan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in toddobaadkani yahay mid soo nooleeyay hiddihii iyo dhaqankii Soomaaliyeed kana dhigay mid la jaan qaadaya qarniga 21aad. Assalamu alaikum. Mudanayaal iyo Mawoyin. Marka hore aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idinla joogo maanta halkan. sanad kasta waxaa lagaga hadlaa oo lagu lafuguraa inta uu toddobaadku socdo mawduuc gaar ah. mawduuca sanadka lagaga hadlayaa waa space. Sheekh Maxamuud Dalmar ayaa iftiiminaya mawduuca sanadka iyo macnaha uu xambaarsan yahay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Space kan aynu ka hadlaynay oo xitaa arbixintiisii lagu heshiin waayay this year bay ahayd sanadka oo goob lagu sheegay oo meel lagu sheegay oo fedde lagu sheegay waxa ay isugu soo ururaysaa yani in ay jirto hab ama si loo wada noolaan karo waxaan la yiraahdo space-ka ama feddaha ama balaadhana waxa weeye laba shay bay ka mid yihiin oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo sheegay oo ah zamaanka iyo makaanka goob iyo goor oo labaduba aad moodo inay isku mar yimaadeen markii Ilaahay uu khalqay adduunyada dhulka iyo samaawaadka iyo cirkaba physics astrophysics astronomy iyo space science waxa cilmidaasi ku saabsan waxa laga yaabaa dad badani yani dadku inay wada xiisayn laakiin haddana space wax loo baahan yahay siyaasiyan baa loogu baahan yahay dhaqaalaha baa loogu baahan yahay xagga bulshada loogu baahan yahay ruuxiyan baa loogu baahan yahay. Maxamed BK Sahra Ilays Canab Guuleed Dr. Asada Mire Professor Awo Ladan Cusmaan Caasha Luul Martin Awan iyo Sarah Maguire ayaa xalay ahaa dadkii lagu furay Somali Week Festival. hablo aroosyada ay kaga heesi jireen markaan yaraa inaad ka heegisatiyo inaad ka hoosayso hooba yow inkastoo adduun doore iyo dunyo lagu sheego inkastoo dulqaad badan yahay deeqsi lagu sheego duub iyo malaaqo iyo doojo lagu sheego digriga iyo maasteriga uu darajo weyn haysto digriga iyo quraankaba haduu diinta yahay xaafid oo aanu dookhaaga noqon waa dariiq xidhan hadalkaagu way malabdawiyo himirti doocane muqaal halacasi daymadaysa daran hagaysa garkaya halbowlaha khabaad gacan ku haysaaye inaan kala daadaniyo dunkeenu maxiisa qabooye xumaanta ka diga rabo dariiqsan soo wari